kulanti waa saaxiibayaal dhamaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada page-kayga Masar Babla Bashir Bardaro iyo taxanayaasha iyo sheekooyinka daboolana ee alaaba andaha koraba la garay la soo sheekooyinkii muuqaalada xasaasiga ah xulka ah aan alaab saaxiibayaal idiin soo gudbiyo waxaan idiin soo gudbin doonaa taxanayaashii la xiriiray qisooyinka jacayl ee ciyaartooyda caanka ah xirfadda kubadda cagta waxaanu eegi doonaa qisada jacayl ee xiddiga weyn ee Neymar Jr waxay ahayd bishii Oktoobar 18 sanadii 2018 malaha waxa ay ku ahayd maalin caadi adiga tani waa sidoo kale maalintii Neymar ay kala hareen saaxiibadiisii muddada dheer ee Bruno Marquezine markoodii afraad muddo 6 sano gudahooda sababta lamaanayaashu aan xiriirkooda u xasilin waa maxay waana mid su'aalo badan laga keenay xiriirkooda waxa uu bilowday sanadii 2012 Neymar wuxuu la kulmay Bruno intii lagu guda jiray dabaaldeg Rio isla markiiba waa dareemeen iyaga xiddigada telefishinada sidoo kalena moodalka ka ahayd wadankeeda Brazil qof walba wuxuu jeclaa iyada sidoo kalena qof walba waxa uu doonayay la jirka iyada waxaana ahayd gabar Brazil oo idil qof walba oo rag uu dimcinayay isla markaana uu doonayay tartan balaaran ayuuna mid kasta ugu jira gabadhan cajiibka inuu helo laakiin Neymar ayaa sameeyay fal la jeclaysan karo oo khiyaarnimo ku salaysan quruxleyda dhabta ah isbuuciyo yar gudahood ayuu dadka kaga dhex muuqday tani waa bilowga sheekada jacaylkooda laakiin labadooda caan nimo nolol ah ayay ku noolaayeen mid wuxuu kubadda cagta ka ciyaarayay Yurub mana haysto fasaxyo badan kan kale wuxuu ku nool yahay Brazil oo waxa uu duubaa fiimaan aan joogsi lahayn masaafo weyn ayaa ah sababta ugu weyn ee nasasho badani aan u helin laakiin waxa aan la saadaalin karin in ay tahay in Neymar iyo Bruno ay isjeclaadeen markasta oo ay is arkaan midba midka kale waxa ay dareen doondonis markii ugu horeysay ee aan arko waxaan doonayay in aan gacmahaaga ku jiro aan ku jeclahay adiga baby ayuu Neymar ku soo qoray boggiisa Instagram-ka waxay doonaysay inay xiriir adag la yeelato Neymar Bruno waxa ay tixgelisay in ay ka tanaasusho shaqadeeda si xiriirku u fududaado saxaafadda Brazil waxay bilaabeen in ay walwalaan maadaama ay ahayd midda ugu wacneed ee aadka u bilaysay wadankeeda Brazil miyay ku way lahayd mid ka mid ah jilayaashooda ugu wanaagsan waxaa soo raacay 34 milyan oo qof barteeda Instagram-ka Bruno waxay tusaale u tahay dumar badan oo da'yar reer Brazil ah laakiin waxay ku aragtay nolosheeda jacayl iyo shaqo ma shaqo ah ugu dambeyn Bruno waxa ay go'aansatay in ay sii joogto dalkeeda Brazil si aysan u horin dhammaan guulihii ay u soo shaqaysatay murug Neymar go'aan adag ayuu qaatay isbuuciyo kadib tani waa barta aan laga soo noqon karin mar dambe ma wada joogno waxay ahayd go'aankiisa laakiin wali waan ixtiraam badan ayaan u leenahay midba midka kale Marquezine ayaa ku soo qortay barteeda Instagram-ka markan go'aanku wuxuu u muuqdaa mid hagaagsan Neymar wuxuu u muuqdaa mid ku faraxsan baaqiis wuxuu u muuqdaa in uu ku sii jeedo waxaabtiisa waqti badan ayuu la qaataa wiilkiisa wuxuu ku korayaa ciyaartooy ahaan wuxuu ku sii fiicnaanayaa garoonka dhexdiisa sida ay sheegayaan wararka kale xiddiga Brazil ama Salcao ayaa la sheegayaa in uu helay gabar kale oo dabcan xigto
miyay taasi ahayd tii ugu dambaysay ee Neymar iyo Marquezine? ma jiraan wax rajo ah oo ay u qabaan soo noolaanta xiriirkooda? aynu sugno oo aynu aragno midda haddii dhici karto. xiriirka masaafada galay ayaana ah mid inta badan xanuunkiisa iyo dhibkiisa leh. labada lamaane ayaana u badan tahay in ay kala irroobaan oo ay nolosha ku kala wadaagtaan sida ay laba wadan ugu kala aadeen rajada iyo riyooyinkoodii. gabadhan ayaa doonaysay in ay ka dhabayso guusheedii oo ay muddo dabcan ku soo guda jirtay. Neymar oo isagu doortay baaqiis iyo saaxiibadiisa cusub in uu waayihiisa xirfadeed halkaas ka bilowdo, isla markaana kooxdaasi uu caawiyo waqti qurux badan uu ku qaato. haddaba kala rumaynta labadaas riyo ayaana labada lamaane kala fogeysay, waana midda khasabtay in Neymar uu xiriir xodxodashaha gabar kale la bilowdo. mar haddii aadan ii muuqan macaan qalbigaagu mucasho badan kuu helin, oo miyaysan ahayn in aan nolol kala samaysto? waa mid dhici karta middaas runtii, oo dabcan la dareemi karo haddii labada lamaane aanu isku joogin oo aanu xiriirka oo ah mid dabcan isdareemida aanu jirin. waxay u badan tahay in ay kala irdoobaan. qof walbo Brazil oo laba uu doonayay inuu nolosha la samaysto iyadana uu agteeda noqdo. Neymar ayaa si khiyaano leh uga dulqaaday wixii dabiicayay, laakiin ugu dambeyn fashil iyo dhamaaday xiriirkaasi. inkastoo weli aanu caddayn salka iyo halka uu ku biyo shuban karo labada lamaane xiriirkoodii soo socday muddada 6 sano ah, 4 jeerna isku dhaceen. waxaana sidaa kusoo gabagabay xiriirkii dabcan Bruno iyo xidiga lagu magacaabo Neymar Jr. waana gabar iyadoo caan ah isla markaana filimada jisha. Bruno waana mid ka mid ah gabdhaha aadka u saameynta badan, sidoo kalena modelka kuna guuleystay abaalmarino dhowr ah. Neymar ayaa isagu waxa uu haystaa cunugiisa lagu magacaabo David Luca da Silva Santos, waxaana uu yahay mid isagu aad u jecel yahay. hooyada dhashay ayaa ah Carolina Dantas, taasoo ah gabar Instagram-ka aad looga yaqaano. cunuga Neymar ayaana dhashay 24 Agost 2011. gabadhan ayaana ah mid iyadu laftigeeda aad u qurxoon, isla markaana aad Neymar loo warinayay in ay buuxinayso booskii gabadhii hore ee ka baxday. Neymar ayaana xiriiro badan isagu leh, inkastoo oo aan la ogeyn gabadha rasmiga ee uu la socdo, laakiin xaqiiqa in wiilkan uu ka dhalay inantan iyaduna isla Brazil u dhalatay. afilaa xun inaad ku horsan laacdan oo dubteen tan iyo waxaan xigta la gareeyo la soo sheekooyinkii muuqaalada iyo taxanayaasha jacayl iyo qisooyinkooda. jaalkay mashaariic badan bishada waxay deejka tan ay kula dambe provide pra eu me sentir inteiro. Só preciso de você, de você. Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa
nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando